Li Bilood kor waxaan ahaa lazy bro max subaxdii soo kooy school iskaado and then TikTok scroll gareeyo haddana maalinkayga same routine, no goals, no system, nothing. But one day everything changes. Just start. Whatever hobby, skill, dream that you wanted to pursue, there's never going to be a perfect time to start. You just have to go for it. Fear kills more dreams than failure ever will. Just take the first step. Haddii aan sidaas ii ahaado, what will happen the next 3 to 5 years ka igu soo wajahan? Waxaan ogaaday in boqolkiiba boqol ay ka fiican tahay dhimashada inaad goals la'aan ahaato. Laakiin waxaa jiray hal shay oo aan jeclaa inaan sameeyo, waana content creating and video editing. After uploading my past 3 videos consistently, waxaan jeclaa inaan helo views iyo subscribers badan. Laakiin easy ma aha waas. Days, weeks, months kadib waxaan helay hal video oo shaqeeyo. Boom. The good news is we are ku dadaasho guaranteed waa helay. No matter what it is. So guys, ma control kartaan meesha aad joogtiin. Wax kali aad control karto waa waxa aad doonaysaan. So now I have 1.5k subscribers and bilaa soo waxaan rajaynaynaa boqolka kun gooyno. So peace.